مدن وزير iyo golaha wasiirada iyo guddiga isxilqaan gudoomiyahooda iyo guud ahaan marti sharafta kale iyo in kasto qof kasto ka soo qayb galay waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii maanta sharaf weyn iyo farax iyo noo tahay wixii aan bilownay soo sheegay wasiirka in ay dhamaatay oo maanta halkan aan ku xarig furnay ama aan ku xarig jarnay waxay tusaale u tahay haddii aan shaqaysanno oo annagu aan isku tashanno inaan gaari karno meel alla meeshaan rabno waxaa meeshaan hadda tuulada dhaqanka iyo hiddaha iyo fanka Soomaaliyeed aan iraahno magaca tuulada maxaa yeelay meeshaan waxaa ku yaal madxafkii maktabadii iyo tiyaatarkii oo intuba ka turjumaysa ama lagu faafinayo dhaqanka iyo caadada Soomaaliyeed runtii waa wax idinku aad qabateen gacmaheenna aan ku qabsanay in aynan weydiisan annaga dhexdeena isku tashanay hadday yihiin ganacsatadii hadday yihiin ururadii shaqaalaha iyo rayidka hadday yihiin siyaasiyiinta hadday yihiin cid walbaba ay maanta ka geysatay qayb aan aragno wixii aan qabanay iyo hawshii aan qabanay inay noogu dhammaatay si guul ah oo annagu gacmaheenna aan ku dhisannay intaan sugi lahayn shisheeye noo yimaada oo gacanna siiya inaan isku tashanay aan ku dhammaystirnay shaqadii isxilqaan runtii kulligii waa ku mahadsantihiin qof walba kaalintuu ka qaatay waa ku mahadsantihiin waxaan aaminsanahay programkan isxilqaan ama allahan isxilqaan inaan ku dhisan karno guud ahaan dalkeenoo dhan xaqiiqdiina sidaasay ahayd programkii aan u dhisnay ama aan u diyaarinay isxilqaan inkastoo aan rajaynayno wax badan inaan qabanno waxaase naga soo dhex galay COVID-19 cudurkan safmarkaa naga soo galay qorsheen wuxuu ahaa isxilqaan inaan ku dhisno waxyaabo badan iyo meelo badan iyo goobo badan oo duusan in aan ku dhisno laakiin alxamdulillaah at least hadda inaan tusnay dadka wixii annaga aan u istaagno oo gacmaheenna aan maaragtay aan ku qabsanno oo aan iska kaashanno oo si wada jir aan uga shaqeyno inaan dhammaystiri karno siday ahayd shalay iyo si ka qurxoonba inaan gaarsiin karno waa mahadsantihiin qof walba hawshuu ka geystay iyo shaqadii iyo kaalintii uu ka geystay insha allah intaan in ka badanna waa qabanaynaa oo tan waxay noo tahay runtii tijaabo iyo noo tahay tijaabadanna waa ku guulaysanay waxaanan u diyaarsannahay kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aan wixii ka dambeeya hadda aan dalkeena ku dhisanno intii duntay iyo in cusubna aan ku dhisanno oo lahan isxilqaan hadduu Ilaahay yiraahdo wa salaamantihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh